qurxinta iyo sabaynta ilkaha ayaa ah mid daldalaal iyo caafimaad qabsiinaysa qofka aadanaha ah. Shimaali Axmed Shimaali oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee muddada dheer ku jiray fanka Soomaalida oo la dhibaatoonayay xanuun ka soo wajahay ilkaha ayaa si uu helo caafimaad dhanka ilkaha ah Ilaah baa caafimaadka bixiye. waxa uu yimid isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho ay ka howlgalaan dhaqaatiir u diyaarsan dabiibida bukaanada yimaado isbitaalka Shaafi. Dr. Umar Sheikh Maxamed Cadow oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasho isbitaalka Shaafi isla markaana qaabilsan cudurrada afka, ilkaha iyo qalliimanka daabanka ayaa waxa uu sheegay Shimaali Axmed Shimaali in xaaladiisa caafimaad ee dhanka ilkaha ah wax laga qabanayo. qurxinta iyo nadiifinta kadib Shimaali Axmed Shimaali oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed isla markaana ilkihiisa dayactir balaaran lagu sameeyay ayaa waxa uu yiri anigoo Shimaali Axmed Shimaali ah oo muddo aan kala garan waayay qaybtan sare aan ka seexan waayay afkan ayaa Ilaahay maanta wuxuu i waafajiyay markaan isbitaalada xamal oo dhan aan soo fiiriyay isbitaalka Shaafi ayaa lay amaanay sidii aan ku imid. Dr. Umar Cadow ayaa Ilaahay wax igu daray miisaanka Allah ugu daro anigoo xanuunsan oo xaaladeydii madax wareer ilka xanuun habeen iyo maalin aan soo jeedo ayaa doctorkaas gacantiisii ayaa Ilaahay caafimaad igu daray. doctorka wuxuu joogaa isbitaalka Shaafi isla markaasna wuxuu qaabilsan yahay ilkaha gelintoodii iyo ciridka qalliinkiisii specialist. dhinaca kale oo nadaafadda ilkahayga waxaan imid ayagoo noocan minal wax aan ku sheegay aanan ka saynin oo ayagii oo dhan jaalle iga noqday. gabadha Ilaahay khayr ha siiya oo u qaabilsan dhinaca ilkaha Fartuun Sheikh ayaa kaalin fiican ii samaysay oo ilkahayga xataa markii ay shaqada ii dhamaysay aniga aan 15 jirkaygii ayaa Shimaali 15 jirkii ma tahay mise yani 60 jirkii matiid ayaan isiray. waa mahadsantahay cameraman iyo Dr. Umar Cadow. Ilaahay baa mahadle. kadib waxaan u mahad celinayaa wareerkii iyo xanuunkii ihaaye Ilaahay ka sokow Dr. Umar Cadow ayaan waa ku mahad celinaya Dr. sidoo kale Shariif Haashim Shariif Ciidruus oo ah aabbo Soomaaliyeed oo muddo dheer la dhibanaa ilka la'aan soo wajahday ayaa waxa uu Dr. Umar Cadow uga mahad celiyay sameynta iyo dib u soo celinta ilkihiisii hore u burbursanaa. Ilaahay mahadiis ina Dr. Umar Sheikh Maxamed oo asaga uu imid anigoo ilka laheenin oo ay xanuunay afarta ilka waa iga bixi wax aniga faalahay ma wax aniga hadda waa ka ilkihiga ii sameeyay asaga waaye nin sidaas camal doctor ma arkin aniga dhulyaalka dhanna waa jiri sawaaxilida dhulaha carabta ma arkin hadda ka hor waa igiliin ilka waa naga waaye aniga maanta waxaan joogaa Soomaaliya جدا كإمت لبعضنا إهايستا ناقة بدنا أروسي سدح ناقة أروسي مد أودا بيسوحاي تري الكهذا صوصو بإمام هذا إما غياني ستري أنا مؤتقين إلا الكي مانت إن شاء الله تعالى حقيقة نمبر 3 ويتن أو حجيسي حجة إتري أضو الكهذا جستهن هاي إيمان. Professor Dr. Umar Sheikh Maxamed Cadow oo ah dhakhtarka qaabilsan cudurrada afka, ilkaha iyo qalliimanka daabanka isla markaana xaaladda caafimaad ee Shimaali Axmed Shimaali
iyo Haashim Shariif Caydruus ayaa waxaan weydiiyay qaabka uu dabiibo bukaanada u yimaada ee ka cabanaya dhanka ilkaha. halkan oo isbitaalka Shaafi qaybtan oo ilkaha oo aniga aan howlwadeenka ka ahay, dadka markay yimaadaan howlo badan aan lagu qabtaa, laakiin howlahaas way kala horeeyaan. marka ugu horeyso qofka waa la visiteeyaa, waxaana la fiiriyaa haddii caafimaadkiisa afka guud ahaan oo wanaagsan yahay, laga bilaabo nadaafadda afka, nadaafadda ciridka, kadibna howlihii kaleeto ayaa la fiiriyaa oo ilkaha suuska galay, ilkaha ka maqan, ilkaha u baahan in la geliyo, iyo haddii qofka uu baahan yahay toosin. marka howlaha saasay u kala horeeyaan. wuxuu ka cabanayay madax xanuun iyo ilkaha in badan ilkaha ka mid ah inay suus uu ka galay, qaarna ka leeleqanayay. marka wuxuu doortay in isbitaalkana aniga igu yimaado, wuxuuna iga codsaday wixii shaqo ah oo u baahan yahay inaan wax uga qabto. markuu yimid marka hawsha ugu horeysa aan u qabanay waxa waaye in afka oral hygiene ama afka nadaafadda ayaan u qabanay. aad iyo aad oo la dhacay, maadaama oo gabarta noo qaabilsan oral hygienista loo tababaray surgery-gayga Fortuna Axmed Shire ayaa si fiican maaragtay sida dadka kale ugu qabataba si fiican hawsha ugu qabatay. aad iyo aad asoo maqsuud ah oo noo mahad celiya ayuu meesha ka tagay. nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninkaan ku shukrinin dadka anigu igu shukrinin, man laa yashkuru nnaas laa yashkuru allah. marka waxaan kugu mahad celinahay doctor Cumar Cadow, xanuunkii ihaayay, murugtii ihaysay, maanta waa iga hartay, ilaahay ka sokow, adiga ayaa u sabab waa mahadsan tahay doctore. waa mahadsan yahay Shimaali Axmed Shimaali oo maanta soo booqday isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho oo ay ka howlgalaan dhaqaatiir xirfado kala duwan leh ayaa waxa uu daboolay baahiyo badan oo ay qabeen bulshada Soomaaliyeed. Mustafa Xasan Cabdi, magaalada caasimadda ee Muqdisho.